waxaan ahay laga jaray jixka midanaho hooyo waan ku jecelahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan ka salaamay dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel ba caalamka ay ka joogaan gaar ahaan asxaabta ku xiran channelkay Farxiye Ibrahim. Welcome to Farxiye channel. soo dhawaada asxaabteed qiimaha iyo qaayaha mudan. waxaan idin leeyahay Soomaaliyeed meel walba joogto sanadka ha noqdo sanad khayraad kii Soomaali ay ku degi lahayd la isku aqoonsan lahaa dadka walaalaha kala maqan isku soo dhawaan lahaayeen colaada ay ku baabi'i lahayd biidmillaahi kariim insha Allah. intaasna waa ducada sanadlaha insha Allah. asxaabay waxa idin wadaa waxaan jeclaa wiilkeen walaalkeen Soomaaliyeed asagan Soomaali nooc walba ka ahaadaba Soomaali waa Soomaali hadallada uu ku hadlaayo inaad ila dhageysataan kadibna aad ila share gareysaan insha Allah. Soomaali waxay tiri hadal waa margiyo kale hadba meel u jiido marka sida aan u arkay idin sida aad fahmi doontiin kale macna waa isku dambeynaa insha Allah. haddana waxaan jeclahay daawash waxaan inaad ila dhageysatiin wiilkan wuxuu ku soo hadlay insha Allah. نيها وميقالة شعب كنوي كش شب كده شب وريالين وعنو جاي إن كاس هدي هرجسة لو حر لها أما هدي ميل كلا لو حر لها إن وحن كلها هاي قيقة هي ورضا يسقرين لها إن عايدة يتربي لها إن سو هالأفكار يسفرون لها إن وحن كلها هاي مريحة دقن لها كون كرده ماذا حلقوا دوبن لها بنوجه العين الرجل لكن ما قرن كذا يو صوبته حرقيس لوجه هالدواعي أرنكا إثيوبيا بيكي واللوحن يويه وما له دركي ما له تدودو هذا الكويدي وحي شيخ يا شريفة بيكي مدي كده وعرف دت كسكر عيا عدو كسكر هذا إذا كبوت كان تقنن أنا asxaabteeda qiimaha badan Soomaaliyeed waa maqasheen wiilkaas Soomaaliyeed soo ku hadlay ee hadalku uu ku hadlay malaha waxa dhibay sida aniga aan u arkaayo hadalladii uu ku hadlay wiilku wuxuu ka soo jeedaa malaha Soomaaliland insha Allah ma sha Allah. soo dhawa walaalkeen YouTuberka qiimaha ee qaayaha mudan Soomaaliyeed waa dad Soomaali kamid ah meel walba Soomaali joogto waa Soomaali ina walaalkeen macaan saas aad u hadasho dadka aad kala qaadid looma baahna inaad macnaha waxyaabaha qaar oo umada aad u aftiimisid looma baahna waxa tiri wiilkaas xirma laga hadlo hadii macnaha maanta BK daraad oo saas u hadle madaxa gorgoradaha saarateeno BK aad u xaniin weyntiin uu yiri waa ra'yigiisu ka hadlay sida aan arkaayo uma hadlin sida hadal rageed kuma hadlin sababtoo wuxuu ku hadlay hadal beeleed qabiil kasta Soomaali kamid saan waay intay uqdadan ku jirtaan Soomaali midoobayso ma isku tiirsanaanayso sababtoo shakhsi ayaa sida injirtoo kala loo dilooyaa sababtoo ninka hadda wuxuu u hadlay shakhsi ahaan inuu yahay beel ya Somaliland waxa ku dhagan u diidan inay xurnimo qaadato marna waxay leedahay xuraad tahay marna waxa la dhahaa macna xamra laga xukumaa waxyaalahan wax anaga dhan naga sii weeweyn macna sheeko oo meel dheer ku biishoonayso aan fahmay wax anaga wax aan ka qaban karna ma aha anaga wax leen wadnaa insha Allah Soomaalinimo aan isku jixin 40 sano ka hor 40 sano dagaaladii ay galeen Somaliland uqdadiya wili ku jirto Soomaali meel walba taagan tahay cid ugu dhiman malaha cid ugu bas oo ku basi malaha marka هوي دحيس واز دجالين دارود waa ku jiro dagaalka ku jiro wax macna oo Soomaaliland ay khaas ka dhiganayaan meesha ma jirto Somaliland waxay iska dhaadhiciyeen in Soomaaliland ay macna ay gooni ka yihiin oo iyagu iskugu tagay amal no ma dhici karto saas ha fahamsiin dadka qalad ha ka sheegin ra'yigaaga qalad waa saad u hadlo qalad waa Soomaali waa taada labaad waxaan kala rabaa inaan ku sheego insha Allah ama aan ka dhaadhicay bulshooyinka Soomaaliyeed wiilkan Soomaaliyeed sidoo u hadlay waa wax laga xumaado waa wax macnaha aniga naag dimirkeyga ma siinaa khaladkaas inaan ku hadlo sababtoo wuxuu isku keenay BK iyo wiil oo Soomaali oo shakhsi shaqan macna maxaa la oo hal qof oo shakhsi oo ka baxay xamar wuxuu tagay Ethiopia sax
حتى حمر إثيوبيا وتجي إثيوبيا لو حري سببت لو حري وحيالها لو تومايو وحي مركز ديراد هو أصلا لو هايستو أو دتكي لو ديديو وراسي لقى قاعد لا يهيو أو مال لو جيستي دولة إثيوبيا إذا تقال صح نولو بين ودن كيس لو تاجنا حرو يا إنه خف كاسور رو كسميستو تاس هرتا ولكن وحا تاس إنه هرتا دينك كاجرتو أو أركا أتفهمي لا هاي إثيوبيا والدولة Somaliland iyo Soomaali Muqdishona waa Soomaali been وبيننا وأنا أصلا هاي marka tan BK tii maxaa lahaa magaciisa qadar ha isku meel dhigin qadar shakhsi dawlad ay ku dhigan tahay wuxuu halay ninka hadli kara mal farma dawladda Soomaaliya ma hal nin oo bini aadan hal nin oo xamarka baxo dawladda Itoobiya haysta ma loo xagana waa maya laakiin qofka bini aadan markuu ku eedayo waxa ogaanaysaa qofka inuu yahay qof dadnimo ka rabo BK anaga daraad baan dadka dhan Soomaalida waxay usoo qeylinaysay macnaa sidoo hadda sheeg gorgorada madaxa la saarnaa wiil Soomaaliland oo qoor weyntiin wiil waxaan la diidan yahay shalay oo hin ka dhaceysay inuu asaga maanta ku khudbee uu yiraahdo hadalka fiir hadda wiilka hadda fiir muxuu dhaamaa hadalka uu ku hadlaa fiir ma aqaan marka dadkan wixii waxba si kee dadka Soomaali waxba si kee Allah BK arinta uu ka hadlaayay umada Soomaalida ee ka kulaato waxay ahayd dhibka iyo dhaawac oo Soomaalida daadsan dhiigii shalay daatay maanta adiga ku kor jeesteenine ya ha Soomaaliland iska daaya hadii kal saanad noqonaysiin inuu yiri hadii kal macna saana waligiin aliin aad qarax uu baabi'aysiin inuu yiri kelmadaas loo daba taagnaa kelmadaas markay Soomaalida dhan ee dhinac ka martay uu arkay asagana ya uu gareystay uu ka toobadkeen wuxuu yiri aniga maadaama hadalka aan dhahay haddana waxaan jeclahay Muqdisho inaan ka xaal mariyo ma sha Allah hadal ragnimo ku hadlay wax weyn ma aha leesh adiga hadda oo soo naqnaqi hadalkaas oo dadka isku aftiimine walaalkay macaa nin walba waxa Soomaalida waxa nin walba qalad uu sameeyna nin ma aqaan marka YouTube ma ku gadanayaan dadka aluuf daawad ma ka yihiin dad naceeb ma ka yihiin qabiil kan wixii loo dhaafi la yahay subxaana casaa wajal ilaaha og anaga ma naqaan walaa wixii jiro marka BK arintaas asaga inuu gardaran yahay oo qalad ku hadla asaga waa dareemi waana ka soo jawaabay anaga Soomaali hadaan Soomaali Muqdisho waa ku faraxsanahay aad iyo aad aan u soo dhaweyn hadalkuna galay macnaa nin Soomaaliyeed oo fanaahi u ahaa taas waa taas tan kale wiilkan xamarka baxay ee meesha tagiyo lagu soo xiray wixii loo xiray ilaaha og wixii jirana dawladdu gacanta ugu jira marka dawladda Soomaaliya waxa tiri cadow iska dhiciya cadow ma aha nin wadankiisa ilaashadi cadow ma aha wadankiisa asaale haduu qalad ku soo galay haduu baasaboor qaldan u watay hadii wax kale aswatay qasabba dawladdu waxay xaq u leeyihiin inay iska baaraan baartaankii ku socod qadar Kenya wixii calafkiis ah wuu maraa ilaa adaa wadan dado u saafartay waxaad kala kulantaad leedahay ma fahmay laakiin ogow walaalkay macaan YouTuberka wiilkan waxaan leeyahay qofka markuu ku eedeeyo Soomaali weyn markay kulli ku soo kacaan ee macna BK eedeynayeen waxay ka rabaan waa dadnimo waxaana dadaan kala go'een waxaana abtiyo ee samo ma fahmay maanta hadii aan xamar oo dib aska jiro Hargeysa loo qaxa Hargeysa dee dib jirto xamar ay soo qaxay marka dadaan kala go'een walaalkay macaan kala goonin insha Allah adna waxa ka soo gaaray dambi weyn xumaanta heerkaas gaarsiisan qalbigaaga inaad ku haystid waa laga fiican yahay bulsho weynta inaad isku aftiimisid waa laga fiican yahay waxaan jeclaa markasta waxaa fiican hadalka kan san inaad ka soo qaadatid haddii qalad as jir xataa waxaa fiican dhalinyaraad tahay dad badan oo ku fiirsanaya gabdho iyo wiil oo ku fiirsanaya inaad hadalka dawooshid aad dawooshid oo waxaan waxba jirin camal aad ka soo qaadid ma qadar Kenya oo laga haastaa ya Soomaaliya iska celiya maxaa lahaa ilka cas ee magaciisa BK bo وكسو معنا قورة وصول هذين وصو حنين ويناتين رك يدمرا أكو خيلنيسين حد ما أسكت عسان بيكي وحلوس أردا أو لو هذينا بيكي ولا كان هو كلسوني أو خبنا ضدني ما قربنا هذا بيكي ونده أنا ما أنت ده إثيوبيا نده وحبه أمريكان حلقة فوق إثيوبيا وحرنة سومالوين وحكا قلاب إسكير دم بيجو قلال وقاضي صاحب لولك هذا مليت
nin walba dhulkiis inuu ilaashadan xaq uu leeyahay hadduu control ahaa hadduu kontrabaan wadi haddii baasboor wax oo xun uu watay wax kasto wuxuu iyagaa soo baaranaya taas howl u taal maaha dowladana sumcadeeda ninkii baxo oo meel taga dowlad maka dabaqeyrine taas sumcadda dowladnimada saas maba ahaba qofkan wadankiisa adaa ugu tegay wuxuu xaq u leeyahay inuu ku baaro weegi aad u socoto inuu ogaado wixii markaas lagu qabto sababtoo ah ninkan waxaa lagu qabta wixii lagu qabtaa la ogeyn uga baahina garoonka ma jiro qof garoonka laga wato la xirta isla oo dadna loo diidi nooit ma dhici karto wax uun baa jiro waxay jirtana waa soo bixi doontaa dowladiina ka dhacsada ninkaasaa niga maqan iska celiya what ninka hal qof soomaali hal qof nin soomaali oo baxoo daneysanayo haddii la xiro ciqaabtiisuu maraa waqtiis ilaahay ka dhigaas kasoo baxaa insha allah waxaan xaq u leenaha inaa u duceyno bes ha isku dirin ada dadka ha isku dirin dowladda soomaaliya iyo dowladda etoobiya dhexdooda fitna ha ka kicin soomaali maanta dowlad weyn oo cagaheeda ku taagan ma aha dowlad maskiin waa adigiiba ku celi la-daa etoobiya ma iska celi kartaa oo shabaab raaxada ka qaado qarax raacaa loogu qaado naga dhaaf walaalkay dhiigaan ugu karin ilaahay ka cabso ummaddaa isku baabin insha allah khalad wuu dhacaa waana laga soo noqdaa insha allah biigkii nin fiican waay qalbigiis nadiif ah waa kasoo noqoy nin wax u arkaayo malaha insha allah mar dambana ma samey doono waxaas wax u eg insha allah adigana waxaan leeyahay dadkaad isku aftiiminas iska daa walaalkeeyo fi amaan allah haddaa ka hesheen subscribe share like waa dhiniciin commentiga ha ahaado mid labada dhinac ka hadlaayo ha ka dhigin waxaani aniga qadarkeeyoona ilama dhalin biigkeena ilama dhalin kulli soomaaliya wadanahay insha allah qof walba waa inaa xaqiis ka hadashiin aakhir ogaa dhulka kaligaa lagu gelinaa cid kula geleys mal qabiilna kuma raacayo asalaamu calaykum